السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادي السلام دماتنا ملك سؤال كتك جوتان فضلا هدات ملك ورسيات صوب وقتو جنال كينا فضلا سبسكرايب شار سينا شير سادة أصحابته دولة وداكتو مهاتسني ما توحان فيديو كغالي دون وكرانيال نيرفيس كرانيال نيرفيس و12 كرانيال نيرفيس 12 كرانيال نيرفيس waxay ku yaalaan ama ay ka soo baxaan laba kamid ah oo labada ugu horeysa ayaa waxay ka soo farcamaan iyagu cerebrumta halka ay tobanka kale ay iyagu ka soo farcamaan brainstemka haddaba waxay noo muuqdaa waa qayb kamid ah maskaxdii oo loo jeediyey dhinaca qaybteeda hoose waxay noo muuqdaa 12 cranial nerves iyo meelaha ku yaalaan markaan ka hadalno cranial nerves 1 oo ah olfactory wuxuu ku yaalaa cerebrumka ayuu ka soo farcamo oo ku yaalaa olfactory sidoo kaleete optic nerves oo ah cranial nerves 2 wuxuu isaguna ku yaalaa cerebrumka labadaas oo ah maxay ahaydey labada kaliya haatay ka imaata cerebrumka then tobanka kale tana waxay ka imaadaan brainstemka then brainstemka markaan ka hadlayno waxay kamid tahay waa midbrain pons and medulla oblongata hadda markaan ka hadlo cerebrumka waxa kamid ah waxa ka yimaada qasoo farcamo two nerves oo kala ah olfactory nerve iyo optic nerves then nerve 3 nerve 3 isaga marka ka hadalno wuxuu kamid yahay midbrainka brainstemka labta midbrainka nerve 3 iyo weliba nerve 4 oo trochlear nerve 3 oo oculomotor nerve 4 oo trochlear sidoo kaleete markaan imaano qaybta poniska nerve 5 trigeminal iyo nerve 6 oo ah abducens sidoo kaleete haboniska isaguna ka yimaada facial nerves oo ah nerve 7 oo isagoo qaabilsan inta badan facialka musculofacial ka shaqeeya iyo facial expression ka wasaasa insha Allah function kooda iyo surgery kooda ma dhigan doona insha Allah sidoo kaleete markaanu imaano midbrainka medulla oblongata halka waxaan ku soo sheegnay midbrainka inuu ka mid yahay 5 oo trigeminal abducens oo nerve 6 iyo facial oo ah nerve 7 facial oo ah nerve 7 haddaba waxaan usoo dhaqaaqaynaa qaybta poniskaanu imaan doonaa oo ah nerve 8 oo ah vestibulocochlear oo ah nerve 8 glossopharyngeal oo nerve 9 ayaanu imaan doonaa qaybta poniska markaynu ka hadlayno poniska waa 5 6 iyo 7 ma ku sheegnay marka medulla oblongata markaan imano medulla oblongata vestibulocochlear ayaa ka mid ah medulla oblongata vestibulocochlear oo ah nerve 8 glossopharyngeal oo ah nerve 9 vagus oo ah nerve 10 nerviyadaasi waxay ka mid yihiin nerviyaduna ka soo farcamo midbrainka gaar ahaan qaybtiisa medulla oblongata sidoo kaleete nerve 11 oo accessory nerves isagu wuxuu ku yaalaa above the spinal cord beginning meesha spinal cord ka bilaabno ayuu ku yaalaa accessory sidoo kale waxay jiraan nerve 12 hypoglossal isaguna ku yaalaa qaybta kamid ah muxuu ahaa spinal cordka ayuu isaguna ku yaalaa oo la yidhaahdo hypoglossal nerve 12 nerve ugu dambeeya haddaba waxaynu eegaynaa qaybteena xigta oo ah qaybta xigtaas oo ah if
every cranial nerves every nerve has a nucleus nucleus nerves kasta wuxuu leeyahay nucleus u gaar ah nucleus kaasi meelaha asaanka ah waa meelaha nucleus markaynu ka hadlayno nerfyada nucleus every nerve kasta wuxuu leeyahay nucleus u gaar this is for example oculomotor nerve this oculomotor nerve wuxuu jeedaa waxa kale oo uu leeyahay oculomotor nucleus iyo adaragtan oculomotor nucleus uu leeyahay sidoo kale waxa jira trochlear nerve here or trochlear nucleus kamida adaragtan sidoo kale trigeminal isagana wada jeedaan dhammaantood oo waxay leeyihiin every nerve has a nucleus this is trigeminal motor nucleus abducens nucleus where is abducens this abducens nerve and this is abducens nucleus facial nerve wada jeedaan facial nerves and this is facial motor nucleus and this is vestibulocochlear nerves wada jeedaan sidoo kale waxa ku xiga glossopharyngeal nerve vagus nerve hypoglossal nerve accessory nerve this is accessory nucleus accessory nerve here and accessory nucleus sidoo kale taaka marka ka hadalno trigeminal nucleus hypoglossal nucleus hypoglossal nucleus sorry sidoo kale every waxa u jeedaan nerves has a nucleus ugaar that is nucleus kaas isagu uu yahay in informationku marka soo qaadayo nervigu in information kaas soo nucleus si loo soo aqoonsado wuxuu soo marayaan information kaasi nucleus soo maraya that is why it's very important it has a nucleus aadi muhiim u tahay nucleus kaas insha Allah waxaanu ka hadli doonaa video kale oo ka hadli doono nerve kasta function ka qabto iyo researchkiisa ka hadli doono insha Allah waxaan rajeynayaa inaad anatomical nerves ka meelaha ku yimaado iyo nucleus leeyahay asi fiican u fahanteen insha Allah waxaan rajeynayaa kiri doontaan waxaan idinka tagayaa sida iyo amaana Allah assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh